kulantii habboon idin lahaantiin badda wadayaal meel weliba waad ka joogtaan daafaha caalamka. waa sabti 12 Julaay sanada 2025 kusoo dhawaada akhbaaraadkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka. qodobada aad daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya saansaan colaadeed oo laga dareemayo xadka ay wadaagaan wadamada Eritrea iyo Itoobiya, dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo huburuursi xoogan oo ay dhinacyadu wadaan iyo dagaal laga cabsi qabay inuu halkaasi ka dhaco. waxba kale aad daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya SSC qaatumo oo markan wajahaysa xaalada siyaasadeed oo isku gudban shirkii lagu ballamay oo guud ahaanba qarka u saaran inuu baaqday iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ay wadaan dhinacyadu. waxba kale aad daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya maxaas waxaa laga abaabulaya dagaal ka dhanay argagixisada oo looga saarayo degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan. waxaanu idiin soo gudbin doonaa macluumaadkii ugu dambeeyay ee umuurahaasi ku saabsan. qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan ee daawadeeday tahay markaagii kugu horeysay aad soo booqato halkan subscribe noo saar noona like gare muuqaalkan waad ku mahadsan tahay soo booqashadaada aanu sii anbaaqaadno. wararka laga helayo xadka ay wadaagaan Eritrea iyo Itoobiya ayaa ku waramaya in dhaqdhaqaaqyo ciidan halkaasi laga dareemayo. talabadan ayaa timid ka gadaal markii dowladda wadankaasi Itoobiya ay cod hordhigtay golaha ammaanka ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa oo ay kaga dalbanayso in la siiyo mid ka mid ah dekedaha dowladda wadankaasi Eritrea si ay wax ugala soo degto islamarkaana salag military ay halkaasi uga abuurto. waxaa la tilmaamayaa tallaabadaasi inay Asmara si weyn u diidan tahay islamarkaana ay ka hortimid. waxaana warar la helayo ay tilmaamayaan inay jiraan dhaqdhaqaaqyo xoogan oo maalmihii ugu dambeeyay siyaabooyin kala duwan dhinacyadu ay u abaabulayeen. dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda Masar ayaa la tilmaamaya in hareeraha ay ka joogaan dowladda wadankaasi Eritrea, waxaana la tilmaamayaa in dagaal foolka foola uu dhex mari kara dhinacyadu. xadka ayaa la tilmaamayaa in Addis Ababa ay ku soo abaabulayso ciidamo tiro beel ah, halka Asmara iyaduna ay halkaasi ciidamo dhigtay. waxaa la isku haysta waa muhiimada dekeda muhiimka ee Casab ee ku taala xadka ay wadaagaan Jabuuti iyo sidoo kale dowladda wadankaasi Eritrea. waxaana la tilmaamayaa inay doonayaan in halkaasi ay qabsadaan dowladda wadankaasi Itoobiya. tallaabadaasi ayaa la tilmaamayaa inay abuuri karto xiisad xoogan oo markaasi ka dhex beermi karta labada dowladood ee Eritrea iyo sidoo kale Itoobiya. dagaal ayaa la tilmaamayaa inuu halkaasi ka dhici karo haddii xaaladu ay sidan sii ahaato. dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo huburuursi xoogan ayaana weli la dareemayaa. waxaana wararka qaar ee la helayo ay tilmaamayaan in colaada ay suurtagal tahay in halkaasi ay ka dhacdo maadaama dhinacyadu ay huburuursi xoogan wadaan. Asmara waxa ay doonaysaa inay xajisato guud ahaanba badeeda islamarkaana ay ka ilaalsato dowladda Itoobiya, halka Itoobiyana ay doonayso in awood ay ku gaarto dekeda Casab. waxaana halkaasi ay noqonaysaa goob hore ay ugu marusanayeen dowladaha Eritrea iyo sidoo kale Jabuuti. waana goob istiraatiiji ah oo markaasi marin biyooda. waxaana la tilmaamayaa in tallaabadaasi ay doonayso dowladda Itoobiya inay dhaqangeliso. jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa warqadii loo diray kama aysan soo jawaabin. waxaana la tilmaamayaa in Asmara ay ka daba dirtay warqad kale, taasi oo iyaduna markaasi lagu hakinayo. warqada ay Addis Ababa dirtay waxayse u muuqanaysaa tallaabo culus oo ay dhinacyadu sameynayaan. dhaqdhaqaaqyo xoogan ayaana soconaya, waxayse u muuqanaysaa in dagaal foolka fool ah dhinacyadu uu dhex mari doono haddii ay xaaladu sidan sii ahaato. waxay u muuqanaysaa in markan abaabulkan uusan soconayn islamarkaana dhinacyadu garab saddexaad ay u baahan yihiin oo soo kala dhexgalo. Masar iyo Soomaaliya ayaana la tilmaamayaa in si buuxda ay isu hareer joojiyaan dowladda wadankaasi Eritrea, waxayna doonayaan in laga adkaado dowladda wadankaasi Itoobiya oo iyadu markan la daalaa-dhacayso in ay hesho marin biyood ay wax kala soo degto oo ay markaasi ku damaashaado sida ay doonaysana ay ka yeelato. dowladda Soomaaliya ayaana tallaabadaasi hore looga soo bandhigay, ganafka ayayna ku dhufatay. waana tallaabo culus oo markaasi dhinacyadu ay qaadayaan. dowladda Soomaaliya ayaa la tilmaamayaa dhankeedu inay maalmihii ugu dambeeyay ay ka shaqaynaysay sidii markaasi Itoobiya isaga ilaalin lahayd Asmara islamarkaana isaga jiri lahayd dabandaabyada uu wado ra-iisul wasaaraha wadankaasi Itoobiya Abiy Ahmed, kaasi oo doonaya isaguna saldhig military iyo sidoo kale badu wax kala soo dego, taasi oo ay si weyn u diidan yihiin dhinacyadu. waxay soo muuqanaysaa in markan abaabul xoogan uu ka bilowmayo gudaha wadankaasi Itoobiya, taasi oo lagu hubeynayo guud ahaanba jabhadaha ka aloosan gudaha wadankaasi Faana iyo sidoo kale TPLF si ay dagaal uga wajahaan dowladda Itoobiya islamarkaana looga adkaado. waxaa la tilmaamayaa in tallaabadan ay iska arkeen afwarka iyo
sidoo kale Cabdulfataax al-Siisi hubiyo sanad ciidan ayaana la tilmaamayaa in loo gacan gelinayo kooxaha halkaasi ka dagaalamaya si tashuush loogu furo gudaha wadankaasi Itoobiya isla markaana loo mashquuliyo dhaqdhaqaaqyada Abiy uu ku doonayo badaha waxaana la tilmaamayaa in talabadaasi si weyn ay uga shaqeynayaan Cabdulfataax al-Siisi iyo sidoo kale afwarki oo ah madaxweynaha xukuumadda wadankaasi Eritrea waxaa la tilmaamayaa tallaabooyinka inay xoogeysanayaan dhaqdhaqaaqyada ayaana la filayaa inay sii fidi doonaan lama soo oga halka ay saldhigan doonaan wararkeena ayaa daawanaysaan ee qaybihii dhexe ayaad la socotaan markana wararka laga helayo gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa lagu soo waramayaa in dhaqdhaqaaqyo xoogan halkaasi ay ka jiraan kala duwanaanshaha afkaareed ee markaasi soo wajahday isimada dhaqanka ee markaasi beelaha dega halkaasi kuwaasi oo si weyn qaarkood u diidan gogasha ay halkaasi dhigtay dowladda federaalka Soomaaliya ee lagu dhameystirayo maamulka SSC Qaatumo waxaa la tilmaamayaa in tallaabadaasi ay si weyn uga hor yimaadeen salaadiinta guud ee beelaha halkaasi dago ugu horeeyo garaadka guud ee beesha dhulbahante garaada jaamac waxaana la tilmaamayaa in si weyn ugu diidan yahay gogasha halkaasi ay dowladda dhigtay isla markaana oo loo baahan yahay markan in la aado tala dheeraada waxaana uu sheegay in tallaabadan ay tahay hoosaasin meesha ugu dambeysay aanan la doonayn in markan la dhigo gogol loo dhan yahay waxaana uu sheegay in xilligan loo baahan yahay in laga fiirsado masiirka guud ee lagu dhisayo SSC Qaatumo isla markaana habacsanaan xoogani ay ka muuqato tallaabadaasi waxay u muuqanaysaa guud ahaanba markan inaan lagu hesheynaynin gogasha halkaasi la dhigay isla markaana fashil ay qarka u saaran tahay Puntland waxa ay sheegtay inaysan suuragal ahayn waxa ka soconaya halkaasi isla markaana aan loo dulqaadanayn waxa ay sheegtay Puntland tallaabooyinka iyo dhaqdhaqaaqyada lagu dhisayo SSC Qaatumo inay u baahan tahay wada tashiyo xoogan aysan u baahnayn tallaabooyinka ay qaadayso dowladda ee marin habaabinta uu ku sheegay Siciidani waxaa la tilmaamayaa in dowladdu ay wado dhaqdhaqaaqyo xoogan oo gobolada Sanaag iyo sidoo kale Highland looga soo darayo SSC Qaatumo tallaabadaasi oo guud ahaanba fashilmay karta wararkeena ayaa daawanaysaan qayb ugu dambeeya ayaanu ku sii siqaynaa markana abaabul xoogan oo dagaal ayaa laga dareemayaa qaybo kamida gobolka Hiiraan halkaasi oo siyaabooyin kala duwan ciidamo ay uga soo qulqulayaan dababa dagaal oo ka yimid Galmudug ayaa la tilmaamayaa inay maxaas gaareen halkaasi oo ay isku urursanayaan guud ahaanba ciidamada macwisleyda beesha Xawaadle iyo kuba gurmada oo ka yimid gudaha Galmudug waxaana la tilmaamayaa in dagaal foolka foolahi markan lagu wajahayo al-shabaab isla markaana looga saarayo degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan waxaa la tilmaamayaa in markan ay qorsheyn ayaana saraakiisha sarsare ee beesha Xawaadle in la qaado dagaalka madambeesa oo Moqokor iyo deegaano kale oo shabaabku ay soo buux dhaafiyeen looga saarayo tallaabadan ayaa la tilmaamayaa in meel gabagaba ay marayso isla markaana abaabulka uu ka soconaya magaalada Maxaas waxaana qorshuhu uu yahay in la wajaho dagaalka madambeesa Cali Jeyte iyo saraakiil kale ayaa la tilmaamayaa in dagaalku ay hogaaminayaan isla markaana ay ku sugan yihiin gudaha magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan dhaqdhaqaaqyada ayaa xoogeysanaya sidoo kale abaabul kale ayaa ka soconaya gudaha magaalada Matabaan kuwaas oo iyaguna loogu xusul duubayo in lagu xureeyo magaalooyin ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe oo ay ugu horeeyaan magaalooyinka Masjid Cali Guduud iyo Aadan Yabaal dowladda federaalka Soomaaliya ayaana lagu booriyay inay si ambaqaado dagaalka ka dhanka argagixisada isla markaana ay maalgeliso ciidamada macwisleyda ee dagaalka kula jira al-shabaab waxaa la tilmaamayaa in gurmadyo kala duwan ay helayaan ciidamada beesha Xawaadle ee dagaalka kula jira guud ahaanba al-shabaab waxaana la tilmaamayaa tallaabadan in guud ahaanba hore loo sii ambaqaadayo isla markaana dagaal foolka foolahi oo ka dhana al-shabaab ay wajahayaan lama soo oga halka uu saldhigan doono guud ahaan intaasi ayaan ku soo abiraya daawadayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo.